الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا ونكسن داود يال لمانتين بكل صوت هذا البرنامج خصوصا صندوق لحرية اسمها مامور الجوازية دولة الصومالية ومرمي ودن بيه السوكر ديين مارين مارين تقدم بسافر واقص مامور الجوالات مدحك نقنايا دكتور بدن وأبدا دكتور بجوة الصوماليات برنامج كاسي أيام دكتور بدنا حرونتها تلفزيون يونيفرسال المجال مقدشو وحنا إلى غيب قال يحل بنا كم ده برلمان كميلجار كي صوماليا دي أكسر باللابتان كمديك حلبان عبد الله عبد بود صدق عليه حلبان عبد الله مجن بود يصدق عليه حلبان علي حسن دير حلبان نور مكان عبدي صدق عليه حلبان أحمد محمد والله يقان أحمد وجاز لما تمركوا روح تصدقواتان تلفزيون في يونيفرسال وغورينا بالعنكب باللابو لكن بدي أكسر باللابا عبد الله بود تصدقوا حلبان تلفزيون يونيفرسال ويد مرة وذا سعتي سلا هي حارة ضغط الصومالية مثلا هذا يعلمها مع المسلمين ضغط الصومالية هاي جبتي بدينا يسوق في شيء واسدة أركيد مدرسة برلمان كرماس الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. أرمها مع الجوالية ده سيدة تستورك وقبوسي أنا حين بيوصلان. سيدة تستورك وقبوس مع الجوالية ده وإن أي أبابلان وأجاسمان ويكشقيان دولة waxaan dawladda dhexe ka shaqeynin baa hadda ka socdo oo dibadda laga soo abaabulayo waxayna keenaysaa fawdo iyo burbur hor leh oo aan xal loo heli karin nin walba degmadii iyo tuuladii uu waa ku dhashay oo 25 sano ka hor ama 20 sano ka hor aqoon jiray ayuu asagoo dibadda jooga wuxuu yiri maamul baan u ahay madaxweyne u ahay waa mas'uuliyadeedan qaadahaya waa arrin fawdo ah weeye oo Soomaalida waxyaabaha caqabada ku aqranimadii iyo jiritaankii dawladnimo wax looga hortagayo lidku ah inay tahay baan u arkaan waa arrintaas way xildhibaan dawladda Soomaaliya xilligan waa federaal ayna uga shahay ismaha maamul goboleed in la sameeyo iyana ku muuqaneen arrintaas ay qayb qaadanaysa in gobolka ismaamul ka sameeyay isla markaana hadhow dawladda dhexe ee Soomaaliya in hoos yimaado ismaamul goboleedyada waa sax in la sameeyo laakiin wadadii lagu sameyn lahaa waa wax qorshaysan oo baleen leh oo dawladda dhexe ka yimid inay aragto markii arrintaas ayada dawladdu agaasinto ayaa goboladii israaci karo la isku jaangoynaya laakiin nin walba hadduu dibadda inta ka yimaado oo yiraahdo gobolkan aqoon jiray baan anigu maamul ka noqon hayaayo madaxweyne sheeganaya sida hadda beledweyne ka jirto sida hadda maxaan ku leeyahay gobolada Jubbooyinka ka jirto sida hadda Muqdisho ka socoto waa dhibaato weyn waxay qolo ku leeyihiin gobolada Koonfureed 6 gobol bay iska sheeganayaan dadkii iska lahaa war la kama hayaan kuwa Jubbaland bay sheegan hayaan war kama hayaan kuwa waxay ku leeyihiin Azaniyo war kama hayaan dadkii degana waa wax dibadda ka yimid way wax ayaga waana wax ummadda Soomaaliyeed iyo qarannimadeeda caqabad ku away dawladii dhexe oo waxaas maamul lahayd xakameyn lahayd ka hadli lahaydna sibay uga gaabinaysaa ma aqaano ujeedadaas waxa ay tahay anigu waxaan leeyahay maamul goboleedyada hadda jiro Solo Puntland waqooyi galbeed sida galmudug oo kale galmudug waa magaalo barkeed weyn gaalkacyo dhinacna waxa xukumahay Puntland dhinacna waxa xukumahay galmudug waa hal magaalo oo ummadii joogtay kala qaybsamaysaa waa macnaha waa waxyaabaha Soomaalidu ay dhibaatada ku soo wada way magaalo walba ummaddu waa wada degantahay degmo aan la wada deganeyn iyo tuulo aan la wada deganeyn oo ummadda Soomaaliga ay wada deganeyn oo ku dhamaan ma jirto nin walba markuu yiraahdo anu meeshaasaan wax ka noqonaya mid kale oo ka soo horjeedo family aan ahayn baasna wuxuu oranayaa meeshaan aniguna madax ka noqonaya marka burbur aan loo maar heli karin baa ka soo socda arrinta ayada ee ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay arrintaas ayada ah wixii hadda ku lug lana ka gaabsadeen dawladda dhaxana arrimahaas inay ka hadasho oo dalka mas'uuliyadiisa way haysaa ay gudaha gashaa looga baahan yahay way oo ku soo noqonaya xildhibaan Cabdulle Magamood aad ma satay aan u soo gudbo marka xildhibaan Cali Deer maxay tahay Cali Xasan Deer maxay tahay aragtida ku aadan ismaha maamul goboleedyada arrinta ku aadan dhismaha maamul goboleedyada horta hadda siday u socdaan waa si aan sharciga waafaqsanayn
dhismaha maamul goboleedyada waxa weeye inay dawladda ku meel gaarka ah dawladda dhexe ay wax ka soo dhisto ayada ayaa inay u dejiso inta israacayso inta gobolo israacayso inta israaci karto qorshaha in ayada dejiso ayay leedahay laakiin marka loo fiiriyo xildhibaan xaaladda maanta Soomaaliya dawladdii iyadaaba marka meelaha ay ka sariso haddii aan soo qadan tusaale magaalada Muqdisho oo joogno in kooban ay tahay dhexdeeda ayaa madaxdeeda isqabsanaysa qallaas ayaa jira oo xukuumadda mar digaya miyaysan u muuqanin fursad haddii maamulada iyaga ay soo dhisayaan in loo kaabiyo oo waqti la siiyo taas ma siinayso chance in nin 20 sano ugu dambeysay dalka tuulo uu waa ku dhashay uu xaflad yar qabto oo hotel qadab ku sameeyo uu yiraahdo madaxweynahan u ahaa taas chance oo ma siinayso dawladdu la way dhisan yihiin hay'adaheeda siyaasadda way dhisan yihiin baarlamaanka wuu dhisan yahay xukuumadda way dhisan tahay madaxtooyaduna way dhisan tahay wayna qaban kartaa hawlahaas haddii loola yimaado laakiin sidaa xilligan fursad ay u haysaa inay arrimahaas maarayso way u haysaa si fiican aad u haysaa waayahay waad maqlayseen xildhibaan nuur mataan cabdi doodii laba xildhibaan ay ka hadlaysay maxay kula tahay way bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad u mahadsan tahay Yunus arrintan maanta halkan uga hadlayno oo ku saabsan maamul goboleedyada horta sababta loo keenay Soomaaliya inay federaal noqoto sababta loo keenay in la ogaado loo baahan sababta loo keenay Soomaaliya inay federaal noqoto haween Soomaali dhibaato dhaxmartay kadib markii dhibaatada dhaxmartay waxaa la yiri si dadku ay isu soo xaliyaan oo deegaanada hoos looga soo bilaabo halka bal federaal ha laga dhigo oo hoos ha laga soo bilaabo arrimaha Soomaaliya dadka deegaanadooda dib ay isugu noqdeen oo soo dhisteen wax يعني maamul goboleed degmo tuulo ilaa iyo beel ha soo diyaarsanayeen dadka marka waxay fahmi laayihiin sababta keentay arrinta ayada ah horta in looga baahan yahay inay ogaadaan oo waxa weeye waa in dadku ay xal laga soo bilaabo deegaanada weeye marka dadka ka imaanaya diasporada dibadaha ka imaanaya oo maamul goboleedyada ku dhawaaqay oo ama meelaha yani midna Nairobi oo kala maamul goboleed baa hadda yaan ka sameynay meel Zania leeyahay Zania أنا أدو حكي ما قبل كجذو يا كيمي إلا اللي حد قبل كجذو إلا تدور دقمو كتير شيء دقموين كأيجا أيام كنت قال لي إنه شباب كودرين وأنا ديجانا هذا أي شيء يعني زاني بمثل زاني اسمه مامور قولات كاس من الكور قبل نجارة ولا تشلن إذا ما على الحري أو زاني إلا ذهب الليل هو حري ماشي لكنية تذكي حري ما كملها إذا ما أيجا ورق ما هيدا تذكي ديجان كلامين تشلن تذكي حجرات كلامين تشلن maamul goboleed baa dhismo madaxweynaha dhismo marka taa waxay noqonaysaa macnaheeda in yaani dadka Soomaaliyeed ujeedadii iyo dantii ay lahaayeen in meesha laga saaro iyo noqonaysaa macnaheeda waxa weeye wixii in la sameeyay la rabay iyo waxay noqonaysaa in lagu cayaaro marka talaahan anigu waxaan ku soo jeedin lahaa dadka Soomaaliyeed inay tashadaan oo deegaanada in lagu dhiso maamul goboleedyada laga soo bilaabo beel laga soo xijiyo tuulooyinka degmooyinka lagu xijiyo gobolka lagu xijiyo gobolka ku xiga oo maartay ku xijiyo sidaas inay saas ugu timaado oo dadku wax garadka ah dhalinyarada haweenka ururka yaani culimo diinka mas'uuliyiinta siyaasiyiinta kulli ka qabtaan baa loo baahan yahay ma u arkaan maanta xal inay tahay ismaha maamul goboleedyada iyo waliba in la sii kordhiyo maamul goboleed in la dhiso xaq weeyo oo dadka Soomaaliyeed ay hoos u soo laakiin sidee loo dhisayo meesha taal sida hadda ay u socdaan baa khaldan laakiin maamul goboleed in la dhiso waa la isku waafaqsan yahay dadka Soomaaliyeed ay dhistaan qolo walba iyo deegaan walba iyo gobol walba iyo degmo walba iyo عدي إطراء كذا. حلبان أحمد وجاسان أقول مركب حلبان محيط هاي أذن كبير كاي اللي حريرة ما اسمها ما بسم الله الحمد لله. horta waxa weeye waxaad moodaa in la isku qaldahayo wuxuu howlaha uu dalku u baahan yahay iyo damaaci rag ku jiro oo xukun jacayl sida runta waxa weeye waxaad moodaa in waqtigeedii la gaarin in la dhiso maamul goboleed sida ay xildhibaanada igu horreeyay sheegeen nidaamka soo qorahay waxa weeye waxa dhisahayo ma aha qolo marti oo gobol خارجك ودنك جوجتا ودنك بنانك جوجتا ما هي waxa dhisay waxa weeye waa shacabka afti laga qaadayo waxay u baahan tahay in laga helo shacabka horta gobolkan in la ku daro ma ogoshiin gobolkan ku biirta ma ogasha waa shacabka iska la arinta iyada ma aha iskama laha qolo carartay oo wadankiisa ku noolaan weyday oo qaxooti ah oo banaanka dhooban in la aruuriyo in arinta iyada ay ka taliso ma aha arrinta marka waxay waa boob dad xukun jacayl uu hayo weeye haddaysan xukun jacayl uusan hayn
waxay ahayd inay u kaadiyaan oo xoogooda isku geeyaan waddanka dib u heshiisiintiisa iyo dib u nabadayntiisa iyo in waddanka dib loo mideeyo markii waddanka la mideeyo oo horta waddan taagan la helo markaasaa waxaa laga hadli karaa in la weydiiyo gobol kaste inta gobol ee ayaga israbtay inay midowdo in la weydiiyo markaa kadib ayaa waxay iyadoo dawladda dhexe ay ka shaqaynayso oo la shaqaynayso gobollada dadka aftida laga soo ururiyey baa sidaa gobollada in la isugu dara ay ahayd hadda waxa socdo tusaale ahaan markaad soo qaato anigu ma aqaano ma garanayo ma dhihi karayo runtii magacaas waxaan u arkaa magac fadeexa ah oon sax ahayn oon ummadda soomaaliyeedna ku habboonayn laakiin waxaan leeyahay hadda maamulka waxaa maamulka lagu sheegahayo ee ka jiro kenya oo kale tusaale ahaan waa xaway inqilaab wey dawladda dhexa waxay samaysay laba janan bay u magacowday guddoomiye xigeen bay ka dhigtay gobolladaas sidii loo nabadayn lahaa oo loo qaban lahaa bay u xil saartay ayagaa loo diray oo dawladda ku ogay waxaan tuhunsannahay ama aan la yaabanahay oo aan wax fiican ahayn waxaa soo inqilaabay xildhibaan ka tirsan dawladda idan haddayba dawladda dhexe wax ka shaqaynayso ilaa xildhibaankan wuxuu ka tirsan yahay dawladda dhexe waa inuu dawladdiisa la kaashado wax ka shaqaynaya oo xildhibaanada la kaashado laakiinse wuxuu soo inqilaabay labadii sarkaal asagoo weliba aan tuunsanahay inuu la kaashaday dawladaha khaarijiga oy fiicnaan lahayd dawladaha ayaga in aysan ka qayb qaadanin isriiriixa siyaasadeed iyo damaaciga ragga qaarkii ku jiro oo boobka ah bulshada lagu afduubahayo inay dawladaha ka qayb qaadanin baan jeclaan lahaa ama shakhsiyaad dawladaha ka tirsan dariska ah inay arrimahaas aysan ka qayb qaadan baan jeclaan lahaa waxaan ognahay inay dawladda u magacowday cabdi mahdi jenaraal cabdi mahdi iyo jenaraal fartaag ciidamada la geeyey kenya ma ahayn ciidamadaas ciidamo loo diyaarinayay maamul magaca hadda la sheego oo xun ma ahayn waxay ahaayeen qorshihii dawladda ay waday oo ahaa ciidan baa waxay noo soo tabaraysay jabuuti waxay noo soo tabarayay uganda waxay noo soo tabarayay etoobiya ciidanna waxay noo soo tabarayay kenya qorshahaas waxay dejiyey dawladda looma dejin wax la yidhaaha maamul goboleed waxaa loo magacaabay saraakiil ciidankaa asaga diyaarinayso soo abaabulayso waxaa loo diyaariyey in gobollada qayb walba gobollada ku aadan ay qabtaan xildhibaan axmed ugaas ma u arkaysaa sideedaba arrimaha maamul u samaynta kala duwan ee gobollada dalka soomaaliya xilligan xal ugu jiro soomaaliya waxaan dhihi karaa wuxuu ka qayb qaadanayaa burbur buu ka keenayaa ma ogiin wax wanaaga ma keenay sababta waxaa waqtigiisii lama gaarin midda kale waxaa weeye gobolladan in la qabtaa la rabaa oo amni lagu soo celiyaa la rabaa haddaa hadda la siyaasadeeyo oo siyaasad la geliyo khilaaf baa bilaabanaya waxay khilaafkaasna wuxuu dhabarjab ku yahay ciidamada hawlgalka ku jiro ama la diyaarinayay ayuu ama dib u heshiisiintii la dalbayay ayuu waxay ku yihiin maamul goboleedaya hadda cayriinka ah oo hadda la boobahayo iyay dhabarjabin ku tahay sidaa daraaddeed waxaan leeyahay xal ma aha waqtigoodina lama gaarin waana boob iyo damaaci shaksi ah weeye waxaan dhihi lahaa dawladaha ku lugta lehna hana caawiyeenayaysan ka qayb qaadan burburka iyaga shaksiyaadka dawladaha ka tirsan oo ayaga dana gaara inay leeyihiin u malayn hayana hana caawiyeenayaysan burburka soomaaliya ka qayb qaadanin shaksiyaadka noocaas ah oo hadda ayaga aabulahaya maamul goboleedyana waxaan leeyahay waalayaal waqtigeeda lama gaarin awoodiina dawladda ku garab istaaga ciidamada ku garab istaaga dabeedna u soo diyaariya markay dalka xoroobo dadka xoroobo in aad doorasho u soo istaagtaan saasaan ku talinay waayo aan markana u soo laabto xildhibaan bood wax badan baad la soo socotay xildhibaana xaaladda kala duwan iyo siyaasadeed ee dalka soomaaliya uu soo maray marka aan ku soo ururino maanta loo baahan yahay oo halka soomaaliya ma ka dhow yahay sideen ku ilaa ka hor ulahayn dawlad awood leh oo mid ah mase waxaa xalka soomaaliya uu maanta ka dhow yahay in lagu mashquulo arrimahan maamul goboleedyada iyo in lasii badiyo bismillahi raxmaani raxiim horta waa runtaa 21 sano ka hor dawlad xoog lahaan ahayn afriko ama adduunkoo idilbo dawladda kuntan iyo afraad baan ahayn adduunka ugu xoog ugu afriko waxaanu caawino iyo waxaanu xoreynay ah inta dawladood oo afrikaana oo la haystay oo aanu xornimo siinay lama xisaabi karo inta ayagoo isdagaalamahaya aanu kala dhicinayna wax la xisaabi kara maaha afrikadii sidaas ahayd maanta waxay u cagatamaysaa soomaaliya siday u baabi'i lahayd oo dhulka u geli lahayd oo qof iyo dalba loo baabi'in lahaa bay u tartamaysaa maamul goboleedyadan aniga fakarka aan ka qabo
wax qatar ku ah aayaha iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed bay gabi ahaanba Soomaaliya federaal maba noqon karto shacabkeedana cid weydiisay ma jiro awoodda dalku uu leeyahay ama sharci yeelan karaana waa midda shacabka weey shacabkaas maanta wax ka hadalsiiyay oo maxaad rabtaan yirina ma jiro illa ma shacabku xurriyad ay ku helaan waxaan la sheegayay ismaamul goboleed wax shaqayn kara midna ma laakiin shacabka inta wakiilka ah oo baarlamaanka ah annaga ka wakiil ah kaalintii shacabka aanu haynay waa gabnay annagu shacabka kaalintii aanu haynay waan gabnay laakiin wali wada daaro baarlamaanka wali baarlamaan baan u sheeganaynaa xilkii wali waa haynaa magacii waa sheeganaynaa abaaraha ku habsaday wali anoo ka hadlayna ma wada arag colaadda ku daba dheeraatay anoo ka hadlayna ma wada arag waxa dadka iyo dalkii haysta anoo ka xanuunsanayna oo ka hadlayna ajada ka dhiganayna ma wada aragteen waad joogteen baarlamaanka maalin baad imaanayseen waxaan munaasib ahayn baan maalin walba oo baarlamaanka naloo keenaa waxaan ku guul daraysanay aan dhahno waxaan naloo keenayaa wax danta ummadda ku jirta ma ahane dalkii iyo dadkii dantoodii ha naloo keenay inaan ku guul daraysan weyn way intaan idin oo sharciyo imaanaya ama federaal ha ahaadaan ama heshiisyada soo garo dibadda soo laga keenay ha ahaadaan dhammaan waxaa la soo gudbiyaa in baarlamaanka la hor keeno dawladna ay ansixiyaan iyada ku qaadanaya ay gudbi 425 xildhibaan yaa waxay ansixisay in 3 sano baarlamaankaasu sii jirahay go'aankaas wuxuu dhacay yaa albaabadii la isku dhuftay 5 bilood kadib baa dalooyin baa la yiri adinkoon cod lahayn oon mooshin qori karin oo wax mas'uuliyad aan hayn oon xasaanad lahayn baad hal sano dambe sii joogaysaan ayadina waa u codeeyeen baarlamaanku waa baarlamaanka sidaas ah xumaantuna ayaga ma aha xubnaha baarlamaanka 500 oo libaax weer hadduu hor istaago weer bay wada noqon hayaan kulligood way arrinta federaalka miyada u soo qaaday Soomaaliya federaalka wadan shisheeyaa lagu soo sameeyay dal gudihii lagu ma sameeyay dadka Soomaaliyeedna lama weydiino federaal ma rabtaan lama oran dadka Soomaaliyeed abuuristoodaba federaal uma samaysnaba gurigooda dawlad dhexe oo gumartoore Hargeysa u magacawdo Kismaayo u magacawdo Baydhabo u magacawdo iyo xarun dhaxo laga maamulo dalkaan iyo dadkaan u baahan yahay maxaa yeelay maxaan saa u leeyahay magaalo hal qabiil degan yahay ama laba qabiil degan tahay ama 3 qabiil degan yahay lama arkay degmo ayna Soomaaliya idinku idleen ma jiro yaa madax u noqon hay degmadaas iyo degmada ku xigtay xagga xuduud looga dhigahay mama loo abuurin ba dadka kan loomana tumin in federaal ba ay noqdaan magaalo walba dad Soomaaliyeed Soomaali baa la baalay dalkii waa la wada degay waa la qaybsamay afarta baynijo Soomaaliyeed nin walba meeshu raba ka degay seen loogu qayminayaa marka dadka dalka dawlad dhexe waxaan ahayn oo Soomaaliya ka shaqayn karto ama dalkan u baahan yahay ma jirto waxaa ku qoran qoraalka qabyada ah sidoo kale in dawladda dhexe ay soo urursa cashuurada isla markaana si siman ay ugu qaybinayso maamul goboleedyada arrintaas maxay kula tahay aad isleedahay waa mid sax ah oo sida inuu tahay mase in gabi ahaanba la laalo oo aan lagu soo darin soo qabyada qoraysa Soomaaliland halkaasi taagan tahay waa go'day baa la leeyahay dawlad dhexe oo ka hadlaysa Soomaaliland wali ma jiro ma dhicin horta ma in la gooyaa lagu talagalay mase Soomaaliya inay ka mid tahay dastuurkaanse wax ma ku leedahay dastuurkan qabyada wax ma ku leedahay 18 gobol Soomaaliya xuduudeedu waa la yaqaan Soomaaliyana Soomaali baa leh Soomaaliya anigu waxaan oran lahaa maamul goboleed iyo federaalka inta la iska daayo reer waqooyi haday naga caroodeen gobolada waqooyi Siilaan iyo dadka Soomaaliyeed oo maanta qaliilka oo ku sii dabayar dadkii hore ka dambeeya Soomaaliyana ma kala go'i karto gobolada koonfureed iyo kuwa dhexe dadka ku nool waxaan ku talin lahaa intaan waqooyi xukumeynay 22 sano xukumeynay 22 kale waqooyi aan geynahana xukuntay dawladnimada aan qaadna dhihi lahaa anigu aymo iyo badbaado federaal iyo waxa kan lagu wareegayo inta la iska daayo dalkaanu dawladda wuxuu u baahan yahay dawladda xay inta qaadno midnimadii Soomaaliya say noola soo doonteen ayagu midnimadii inaan inta qaadna aan u geyno Siilaaya aan 20 kan soo socda adinka iyo waqooyi dadkiina degan 20 sano xukuma inaad naga go'daan yeeli mayna afti in la idin qaado oo gobolada tan dhexe iyo koonfureed idin qaadaan baan ku go'i kartaan adinkuna daashe annaguna saxariirnay adina taandan in maha anada nooma mana kala maaran intaan idin xukumeynay baan xukumaysaan dawladda dhexe xitaa speaker baarlamaan wasiir ra'iisul wasaare madaxweyne saddex wax la isku daran dhilahaan way adoo mas'aabood aan u soo gudbo dibaan على ذلك
أرنت عشورها إن دولة وحي الرصيد والله أقيم حلو arrintaas anigu ayadan taas u abaaraya su'aasha aan taas u abaaraya arrintaas waxay la tahay in laga bixiyo meesha maamulada inay ay ku soo arursadaan waxa ku jiraan leeyahay qofku waxay ku fiican tahay wixii dhaqaalihiisa inuu asaga kontrolsho degmo gobol systemka asaga uu kontrolsho dhaqaale ahaan uu ogaado wuxuu awood u leeyahay la soo bixi karo khayraadku ku jiro gobolkiisa wuxuu dhaqaale ahaan heli karo ma fahanti inaan kor looga keenin gacan kale xukun kale barnaamij kale hadda waxay imaanaysaa in loo soo magacaabo maaragtay xogeeyada dhaqaale maaragtay arrimo noocaas ah in isku dhac dhaqaale la isku qabsado marka wixii deeq ah iyo wixii federaalka ama maaragtay dawladda dhexe ay oo dhaqaalaha guud qayb ahaan ayada ha u maamusho gobolada laakiin gobol kasta wixii dhaqaale asaga ka soo baxayo waa inuu asaga maamusho waxaan rabaa inaan ka hadlo aniga horta waa la socotaa abaar bacr yaa ka jirta dalkii dowladda hadda gobolka Gadow kale yaan moogaa dhowr iyo toban beri aniga hadda niman UN ay yimaadeen oo dhowr iyo toban diyaarood bay ku yimaadeen dhowr iyo tobanka diyaaradood oo duulimaad ay meesha ku yimaadeen haddii kharashkooda la xisaabiyo dadka reer Gado nolol bay iyay ugu filan maxaa yeelay diyaaradiba 20-30 kun oo dollar inay ku socotaa dhici karto markiiba waxay noqonaysaa 300 kun 400 kun oo dollar 300 kun oo dollar inta ay kharash iyo raashin ay u noqon karto dadka waa garan kartaa inta ay la eg tahay ilaa 50 baawur 60 baawur bay noqon kartaa oo raashin ah nimanka UN-ka oo leh dadka Soomaaliyeed baan wax tareynaa oo diyaaradaha uu ku socdo waxaan tala ku soo jeedinaa diyaaradaha inay joojiyaan oo dadka haday wax u hayaan ay wax u keenaan dadka Soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa goboladaasi dhibaato ba'an baa ka jirtay abaar ba'an baa ka jirtay baahi fara badan iyo col intaba niman shabaab la yiraahdo jidadkii way ka gooyeen oo wadooyinkii raashinka u marayay iyo gooyeen waxaan dhihi lahaa in la kaalmeeyo nimankan diyaaradaha ku socda har iyo habeen diyaaradaha intay daayaan in tareeyo dadka raashin u soo saareen baawur oo garoonka doolo ku soo degaya habeen iyo maalin marka intaas tala ku soo jina tan kala hadda saaxiibadii baan iyo la qabaa jawaabka inaad ama qaaxid cashuurta urinteeda dawladda dhexe iyo qaybinta gobolada maxay arrinta cashuurta horta waxa in lagu heshiiyo u baahan maamul goboleedyadii baan lagu heshiiyay oo maamul goboleed qaabka u dhismaayana lagu heshiiyay waxaan dhihi lahaa tala ku soo jeedin lahaa intaana cashuuraad la gaarin oo horta maamul goboleedyadii waa inay faraha la soo gashaa dawladda ku meel gaarka oo ay ka qayb qaadato ayada lafteeda sida wax loo wado waxyaabaha fawdada iyo waxa socda waxaa yeelay markii maamul la dhiso ba cashuur iyo dhaqaale yaa qaadaya iyo anaa qaadaya iyo teel yaa la dhihi karaa bal horta marka hore waxaan tala ku soo jeedin lahaa waa in laga qayb qaato si wax ku dhismi lahaayeen waayo waxaan soo gaarnay in gabagabadii barnaamijka aan soo dhaweeyay markan xildhibaan Axmed Ugaas bismillah horta waxaan ku taageersanahay saaxiibkay xildhibaan Bood arrinta uu yiri waqooyi galbeed haasha sayna u keenay u geyn wuxuu yiri madaxweyne speaker iyo ra'iisul wasaare isugu daray magaala madaxda horta lagu daradeen ilaan koonfur haddaan nahay midaan meesha la rafaynay waxaan uga mahad celinaynaa gobolada ay gacanta Soomaaliya u hayeen inay amni ka dhigeen doorashana ay ka qabteen sax ah waa uga mahad celinaynaa waa dalkayaga waxay ka shaqeeyeen waa dalkayaga waxay qabteen waa dadkayaga waxay horumariyeen aad baan horta uga mahad celinaynaa waxaan leenahay marka waxa muuqato in ay koonfur inteeda kale ay ka awood badan yihiin wadmoodid inay wax la taaban kara sameeyeen amnigooda uu sugan yahay haddii la ku soo gol yahay wax badan ay qabteen marka waxaan leeyahay magaala madaxda ma ugu dari lahaa anigu ninkaas ku raacaya sumadda Soomaaliya ay ka goyn midda cashuurta marka u soo noqdo horta dawladda dhexe waxaan filayaa ma gaarsiisno awood hadda la yiraaho cashuurta ayada lagu soo ururiyo waxay isweydiin horta cashuurta xaga laga ururiyo gobolada lama qabanin wala gacan ku jiro ma jiraan marka ay shaqeynayaan laakiin ma gobolada aan soo dego dawladdu waxay hadda ku guul daraysatay dhaqaalaha magaca Soomaaliyeed ku yimaado ee dawladnimada ku yimaado ma dhaafo magaalada Muqdisho bal iska daayay ma dhaafo inta yar oo joogo waxay ku guuleysan laadahay ciidamadii ka dagaalamayay ama ciidamadii ka shaqeynayay iyo maamul goboleedyadii ama dadkii gobolada joogay in ay garato dawladdu in ay qayb ku leeyihiin waxa magaca dawladda ku imaanayo ee dhaqaalaha ee tababarada ah ee xitaa waxbarashada deeqda waxbarashada iskuulaadka ee yimid Muqdisho
كأنما واحد مودا لبعتين كسنة إني مقدسات كذا وحيب حسوس لا يهين لا قبل ذا اللي يهين وقيمته ذاك السيان هذا واحد برش هذا تهاي ده واحد برش والله هذا تهاي هذا عافمات تهاي هذا هدول هذا قاله تهاي حتى هذا تبر هذا تهاي دولة هرت مركي أيضا واجبات اللي يقول هي أي جودة قبل ذا حقوق كلين أي جارتيسو وإذا ما هكذا كذا قالما يكون كذا قالما هي قبل ذا واسكمت أي مشاركة سيكون أسينس كوان أسيسو أو شغالة حكا شغالة يسوي مشاركة أسينس أسيسو أو أرض سكولات الكسب بحديثي وحبرشاد هل كان أي أسينس الامتحان كأرضي كواحد كمسوا قاري وما يمانكر ما كهرت هكا أيضا هرت مدة حد هي صورت هقيد هنا جالس صدق الشعب كاي قولة هجالس سوى حقوق هجالس مدة إن عشورته إلا غيره وحلاقي وقت يدي لما جاء هرت بحاله لو وضن حاجة كنت هاجن والله معمولة يمرك له يوح عشور لك هذا مرك له مرك عنك هذا لنا واركا والله أعلم aad ay u maasan yihiin guud ahaanba kuwaas waxay ahaayeen xildhibaano ka mid ah baarlamaanka meelgaarka ee Soomaaliya oo kala ah xildhibaan Nuur Mataan Cabdi iyo sidoo kale xildhibaan Cali Xasan Deer xildhibaan Axmed Maxamed oo loo yaqaan Axmed Ugaas iyo xildhibaan Cabdullaahi Bood oo ka mid ah madaxda baarlamaanka gabi ahaanba daawadayaal inta ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii dooda ee la xiriirta dhismaha maamulka goboleedyada dalka Soomaaliya ma loo arkaa وحنا حل وجدتا إن صوماليا أي جار في نظام يكردن بين إذا برنامج كلام إذا فكوا بيننا وحنا نجلس وبنيناي اللي في شكل يونيفرسال حرتي سنة قالوا بالشو حاجنا سعوديين يعني جوا عبد القادر عمر عبد الله إذا ضاوا يا برنامج كلام إذا فكوا بيننا وحنا نفضل في أسداء ينبغي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.